gudoomiyaha deegaanka Awdiinle Ibrahim Maxamed Kalaay ayaa ciidanka ugu baaqay inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara kala qaybsanaanta ciidanka sida isnacaybka, midabtikoorka, arrimaha qabiilka iyo waxyaabo walba oo keeni kara in ay ciidanka qaybiyaan. qabyaalad yana rigaadeen maadaama wadanku soddon sano burbur ka jari dadka ma ilaahay qabiil iyo walaasay ma ilaahay waysiin digay dhalinyar inta lugon qabiil jara laakiin ma ilaahay qabiil ma kuyin qaranimada iyo wadanimada iyo Soomaalinimada kuyin qabiilkeega hadii horumar la kadeerow ha aragnan ma ilaahay natiijadiis iyo heersi qabiil dagaalnan lamba ma ilaahay lanki duuli abtishee dili ki duuli kalan ay sinjeelay dili dadku dadku deegaamadan deegan koonfur galbeed dad walaalo ah dad is dhaladay dad iska abtirsadaw dad ay san abtaaw hadii ma ilaahay natiijo la qabiil man ama nisdile ana wal faa'iido ma la aragnan hormar jaarnay way faday qabiil manadaas oo quranka ah in god la kariid waana inta qabiil manada la duugan waa shay xaq ah hatta sunnada rasuulka alayhi salatu wasallam kamid rasuulka way alayhi salatu wasallam da'awhu fa innahu mumtina qabiilka baqto weerino qurun marka saas daraadii way siin la dardaarmay dhalinyarada ama arday aaganka sugan mas'uuliyiinta mana maamulka iyo mana taliya ururkan sareen walaalayaal qabiil manana iska riirday walaalayaal qabiil oo istaraw mala marka taas dirdaara waata dhanka kale waxa uu ciidanka kula dardaarmay inay iska adkeeyaan dhufeysiyada ama baraha control ee ciidanka ay fariisanayaan dardaarmay in la foojignaad in la taxadar in odowgana jeefan ma ina raayis nin laga seexdo ha seexanin soo jeedo adiba la ki hindura ama hinduraas hamiin inta la jeeda geen la jeeda taasu tan kale may goonin la dardaarmay taliya ururka iyo ma ina raayis askartis koow in horta iska amar qaadad askari manada la sheego iska amar qaadasho hadii taliya ururka amar shay la qaad abanduuna ma ina raayis amar shay la qaad tali hurmada kale amar shay la qaad tali ko amar shay la qaad tali uu amar shay la qaad walba jabe ma kooyo wal adduunyo ma ina jabe kooyo mala maamulka mana kale amar awamirtiisa qaad marka inta iska amar qaadada hadii amar qaadashadaas oo dhab ah kooyd odowga inta weer isla jab iyo burbur iyo bilaayil kulma khawaarij may kala may la raayis khawaarij may la raayis tabar yahay tamlegeek iidan kan taa weerar u siim aragdan deegaanku madal weerar sanad wareegda la weerar sanadkaas ogaada raas kambooni raas asaar askarraaka ku sahay koobad badanna odowga ku hub badanna ka dhagaal badanna odowga may la raayis ay dad obsi girinay waliba weerar faday ay la kusugnay fadhiga meelo isku dhuumalaysaa deegaamadan may la raayis sidiis bi shaydaan may la raayis lang meel degan yargay udurku shaydaan la argaysan ka jara udur shaydaan la argaysan ka jara shabaab shaydaan iska mid way shabaab dad goon meel degan masaakinta hoola dhagatada waxa ma garatada ya may la raayis DJ Marjo Benaysiday sada may la raayis waaga un qaaman hanga dadka masaakinta qaamay sidiis ogsantin deegamadan oo hata may la raayis sida toosfiin oo kale ama kurtun oo kale ama meel la raaw foolfayl dadki degaaya barkeengad guuralay inay malaytan dadkaas sileedo la fadaa inay malaytan sheekadii dubiyaalkii way sheekadii mana ardaysa diidi dubu ya idaawana fidnaay isku aanan iyo ahlaamo iyo gaduudka kiig madam aw midow wada hertiyo sheekadii lanki jamaada la ilahay sad qalbiga ilaahay u uriyay bishaamin shab war fiiri onaga hoola shaangan ari shabab hatin maynan la awlaadin shaan jamaada awlaadiyad ay walka qabt ya war onaga ad dhalle oo halaale ha barbaaradi ya odowgu la koreeji kora ya nolol geer koron way dhimisho koron marka walaasay may raayis wali ogaada san inta lan walba ka jaran lan walba may raayis wali shacweynaha koonfur galbeed gaar ahaan deegaankan may raayis deegaamada mintaanada sida goof gaduud iyo awdiin oo kale dadka deega walinka baagay lan walba inta qorigay qaadad shacab meel roog dawladda la hariir taliyaha ururka 40 gantrog la hariir la ogaada rasastalasi odowga manaanaday la dhawma dhaaw kala la isku rab asigoona socdaal ku gadaaman kormeer si wax looga ogaado ee baahida dhabta ee ka jirta deegaanada qaar sida Hareerajiif, Goof Mareer, Wariiri, Gololow, Ashagaab, Tukow iyo deegaano kale hoos yimaada deegaanadaasi. Maxamed Khasiir Jito, Dalka TV, Goof Guduud.